إضاف كديو مسجدي قالي قضالوك سحرتي wiilka yar oo falka lagu sameeyay walaashiisa oo oonayso barooranayso hooyo waxay dhan maamuloon taleefanka isi hooyadii kawca falka ana u sheega kadib mayo dhawaxan ana iyo taliyaha gobolka Banaadir dhammaan baarlamaanka Soomaaliyeed qof walba aaba oo xanuunjisay dhibkan oo ardaygan masaakiinka oo 7 sano isdeed jiro ninkii dhibaatada u geystay waxaan codsanaynaa muslimiinta dhammaan Soomaaliyeed qof walba aaba ama hooyo inuu ka qayb qaato oo helida cadaalad inuu helo cunugan dhibaatada loo geystay wiil yar oo 7 jir ah oo nin weyn oo oday oo 60 jir ah oo wali xaasla caruur u joogto diima shay dhigay inuu kufsado anuka ina la dil cadaalad oo wiil la dilo makaa kharihaan markaasaan khaboobsayna wiil saan waa karkaruhayna waa kuleena waa lahjir oo saan la yeel wijigaan ku joog adiga dhashay ma tuuri kartaa ibtal weyn waatan oo kale wiiligaay ma arki haddana almana tus farax waa habaryarta xasan khaliif cabdiraxmaan waxa ay ka sheekeynaysaa sida uu dhacay falkan magacayga waa Faadum Cumar Faarax dhacdadan waxay dhacday maalinta Arbacadii marka wiilka yar marka falku ku dhacay wuxuu aaday muqdisho markuu aaday marka ninka balaanko joogo falka kufsi sameeyay kadib wiilkii oo wiideynaysanay wiilka markuu soo baxay kadib oo muqdisho ku celiyay asina waa la galay falkii yaa dhacay kadib wiil oo 8aad ka soo baxay masjidka soo aaday kadib wiilka waxa arka oo falkii oo dhiig leeyo soo dharafaasano oo meesha ku oonay markaas maamula uu aado xoodha maamula wiil yar xaq oonooya kadib maamulii waa soo baxay wuxuu arkay wiilkii yar meesha ku oonooyo ninkaan oo muqdisho ka soo baxooy kadib maamula wiil yar 8aad igtaa u tagay wiilaa macna xaq oonooya oo kadib wiilkii markuu u umaaday ninkaan oo ark falka dambi sameeyay ko wiilka soo hormarsii kadib as muqdisho ku heri maamulii wiilkii yar oo arkay wiilkii oonaayo ninkaan markaas soo baxay kadib oo dhahay wiilkii yar dhahay ninkaan saan ismee ninkaan yeel nin hadlaaba oo 7 jir ah kadib waxaan ninka wiilkan yarka sheego rumiya oo dhamaamul ma yasta waxa sax ma ka jiray idaaf kadib masjidii gali gadaalook soo xirtay wiilka yar oo falka lagu sameeyay walaashiisa oo oonayso barooranayso hooyo waxay dhan maamuloon taleefanka isi hooyadii kawca falka ana u sheega kadib mayo dhawaxan ana xalina iska daa gabadhii sidii idoo baroorinayso qof soo qaad camal ah ay maadi marka gabar oo habarteeda dhashay oo xoogaa ka daaroon taleefan weyn wadataa wacdi habareeray dha sooro falkan dhacay hooyada wadna gal xitaa xaamil ahayd wadna gali xaafadii dhan waa la isla baroorti tiiraay aad u weyn dhacday oo la arki gaxo marka meesha mudaaharaad lagu qaaday la tagay maamulka xitaa wuxuu dhahay ani maamul ma iyo dhahay fahanti sidii aadi iskuulkii lagu xareeyay wuxuu dhaana arintan xalina suga marka ninkii cidiisa meesha u dagan ninkii wala soo fakii dadkii waxa mashquuli maamulihii mashquuli ninkii falka dambi sameeyay meesha si life oo jestena uu soo maray kadib aniga dhadhabaan is aroorsan xaafadii kulli dhalinyarta maxkamadda aadni dacwa furani kadib labada maamula la xiray oo iskuulka kadib iska baxa la biri isku imaanayna hadda ilaa hadda cadaalad ma haasan ninkiina waa la waasan yahay wiil yar oo 7 jir ah oo nin weyn oo oday oo 60 jir ah oo wali xaasla caruur u joogto diima shay dhigay inuu kufsado taliyaha nisa iyo taliyaha gobolka Banaadir dhammaan baarlamaanka Soomaaliyeed qof walba aaba oo xanuunjisay dhibkan oo ardaygan masaakiinka oo 7 sano isdeed jiro ninkii dhibaatada u geystay waxaan codsanaynaa muslimiinta dhammaan Soomaaliyeed qof walba aaba ama hooyo inuu ka qayb qaato oo helida cadaalad inuu helo cunugan dhibaatada loo geystay anaga aad iyo aad u murugeysanahay ilaa ay hadeer wax cadaalad ma helin ninkii waa la yahay la yiri oo wafaqtay saligi lagu haayo waxaan codsanaynaa baarlamaanka Soomaaliya dhammaan inta qosaysa mas'uuliyadda ay hayso inay ku nool Muqdisho
inay raadiyaan uhelidda xaqa ka maqan wiilkan waa codsi qof walba haloo sii gaarsiiyo hala gaarsiiyo madaxweynaha gaar ahaan inuu asaga mas-uul noqo ee maanta waddanka soomaaliya inuu arrintan soo farageliyo. ayey faadumo maxamed sulaybaan waa ayeeyada wiilka dhibanaha ah. waxa ay ka dalbatay hay-adaha amniga in si degdeg ah cadaaladda loo hor keeno ninkii ku kacay falkan. ilaahayne marka waa kaa caraa ma fiicna waxaasoo kale. waxaa la rabaa inaa si fiican loo hadlo oo neentee ilaahay laga cabsado diinta islaamta oo kala baxno. qoyskiina maxaa u baahan tihiin hadda marka? anuka ina la dilo cadaalad oo wiil la dilo ma kaaga kharihaan markaasaan qaboobsaynaa wiili saan waa karkaruuhaynaa waa ku leenahay waa 6 jir oo saan la yaal wejigaana kuu jooga adiga dhashay ma tuuri kartaa ay ma buri kartaa marka taasaana haysaa ibtali weyn waaytan oo kale wiiligaay ma arki haddana almana tus mar kale. ninkii maxaa laydinkugu sheegay intuu aaday ma la qabtay ma baxsaday? waa baxsaday aad dhahay marka waa baxsaday hala jiriyo waa la jirinaa kastoo suga waa la jirinaa mees oo dhanti joog marka ni dad is ogeenoo warka oo iska dhuugeen markaas ma aha waa la jirinaa sug af soomaali miyaa cadaalad ma yahay waxaa diinta islaam qabtaa isla markii inaa la jiriyo oo inta maxkamad la soo saar waxaan unugeega oo soo dandareesta tan horta eeb jidka xataa ma mari karno marka qabiilkaan dhan waxaas ku dhacay simad xumo iyo arka wiligaay oo shaqadaas oo intay arkin oo berani oo haddii la jiirta muqdisho la gashday muslimnimo miyaa ani wili waxaan rabi bukan oo iskoolka madaxda u ah kaas inaa intay lasoo qabto oo intay wejigiisa